farxad iyo casuumaad qofka aad u fidisay kuna boqortay qalbigaaga iyo noloshaada oo dhan balse garan waaya qiimaha aad leedahay iyo farxadda aad mudan tahay kaana tagay qofkaas adigoo u baahan wehelkiisa iyo la jirkiisa hawalwalin ee ku dheh ereygan كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه السلام عليكم كسو دو muuqaalkeena maanta aan iska baro magacaygu waa Qaasim Maxamed Daacad waxaan ahay saaxiibkaaga guusha janalkeena waxaan ku soo gudbiyaa muuqaalo xiiso badan oo aad muhiim ugu ah noloshaada iyo hor socodkaaga si aad uga mid noqoto asxaabta ku taxan janalkeena riix badhanka guduudan oo ay ku qoran tahay subscribe kadibna furo gambaleelka si aad u noqoto qofka ugu horeeya uu soo gaaro muuqaaladeena hagaag aynu bilowno muuqaalkeena maanta ugu horeyn waxa shaki ku jirin inta aad ku guda jirto safarka nolosha inaad la kulmi doonto dad aad u fara badan oo kugula soo biiri doona safarkaaga nolosha balse qaarkood ayaa ah kuwa si qaas ah kugu reebi doona dhaawac iyo kalsooni darro si kasta arintu ahaataba hawalwalin taas waxa ku dhisan nolosha ee ku dheh ereygan qof kasta oo cidlaya xiriirkaaga waxaad ku tiraahdaa nasiibka ayaa ka hiliyay qofkaas wuxuu ku guul dareystay inuu ku hanto adigoo ah qof ku sifaysan sifooyinka waaweyn oo ay leeyihiin dadka qaar ee lama helaanka ah sida daacadnimo ixtiraam badan mas'uul qaadid wanaajinta qalbiga qofka balse ka doorbiday inuu dayaco waxaas oo dhan sababtu maxay tahay adigu ayaa waxa ah qof nasiib badan oo waxaad ka badbaaday inaad gacanta u gasho qof aanan lahayn indho uu ku arka qiimahaaga dhaga uu ku maqla amaantaada af uu ku sheego karaamadaada sidaa darteed ha u jabin qofkaas ee ku dheh nasiibka ayaa ka hiliyay waxaan nahay noole waxaan u baahannahay lamaane qof kasta oo inaga mid ah wuxuu jecel yahay inuu calaf iyo nasiib u yeesho qof fahma isaga wehel u noqda karaameeya la qaybsada farxadda iyo murugada labadaba una noqda ruux qalbigiisa uu ku dago balse marka aynu ku guda jirno raadinta qofkaas waxa ina soo maraya dad aan ahayn kuwii aan rabnay oo dhaawac ku reeba qalbiyadeena haddii aad la kulanto ruux aad ku aamintay qalbigaaga laakiin dhaawacay taas macnaheedu ma ahan inaad adigu tahay qof aan mudnayn in xiriir lala yeesho balse dhibka jira wuxuu yahay qofkaas ayaan ahayn qof adiga ku qalma ee ah qofkii mudnaa inuu nolosha kula qaybsado sidaa darteed ha ciilin oo ha walwalin oo waxaad ku tiraahdaa qofkaasi nasiibka ayaa ka hiliyay waayo ma ahan qofkii aad raadinaysay ha ka walwalin waxa ku dambeyn doona adiga waayo inta aadan dunida imaan ka hor ayaa lagu diyaariyay safarka noloshaada iyo dadka aad la kulmi doonto oo dhan ha ka walwalin nabarka qalbigaaga ku yaala oo ku reebay qofkaas waayo waxa dhayi doona ruuxii aad sugaysay ee ahaa qofka kugu samri doona meelaha aad ku liidato ama aad ka dabacsan tahay qofkii kugu amaani lahaa meelaha aad ku wanaagsan tahay qofkii kugu dhiirigelin lahaa waxyaabaha dhaqanka wanaagsan ku ah oo aad aga duwan tahay dadka kale kuna hibeyn lahaa jacayl iyo farxad intii aad mudan tahay ha ka walwalin inaad ahaato cidlo waayo wax kasta waxay ku imaan doonaan waqtigooda ku habboon ee uu qorsheeyay inta wax qorsheysa midka ugu qorshaha wanaagsan ee ah alla weyne ugu dambeyn ha iloobin nolosha cidlada kuma wanaagsana balse waxay cidladu ka wanaagsan tahay lamaano been abuur ah ee dhaawac iyo tiiraan ku reeba qalbiyadeena haddii uu ku cajabiyo muuqaalkan maxaad sugaysaa ku qabo like una sii share garay asxaabtaada adiga kula midka ah si ay iyaguna ugu soo biiraan hagaha nafta maadaama uu yahay saaxiibka bulshada wixii fariin ah waxa inoogu reebi kartaa qaybta hoose ee commentiga haddii aad jeclaan lahayd inaad wax ka codsato janalka iyo haddii aad ku ammaan lahayd waxqabadka iyo sidoo kale haddii aad u soo jeedin lahayd wax dhaliil ama talo intaba waan ku soo dhaweynaynaa aad baad ugu mahadsan tahay daawashada muuqaalkan waxaana ku leeyahay igu noolow farxad